maanta baarlamaanku wuxuu leeyahay shir waxa lagu weydiinayo hay'adaha ammaanka waxaan isleenahay shacabka Muqdisho hadaanu nahay amba gaar ahaan odayaasha dhaqanka oo shacabka wakiilka u ah waxaan isleenahay mar hadii saxaafadii laga saaray oo iclaamkii dadweynaha waxa uu soo gudbilahay loo diiday baarlamaanka waxaan isleenahay wixii la yiraahdaba shacabka ogaama karo saas darteed waxaan isleenahay hadii iclaamka iyo hay'adaha warfaafinta loo diiday inay baarlamaanka galaan oo shacabka ay soo gudbaan xogta waxaan isleenahay inaan wax weyn ka soo baxaynaan aaminsanahay aan ku hadlayna magaca dhaqanka odayaasha dadka Muqdisho degan shacabkana hogaamiyaasho ah waxaan kaloon isleenahay waxyaabaha dhacaya oo hadda ka dhacaya Muqdisho gaar ahaan magaalada Muqdisho waxyaabaha ka dhacaya waxaan isleenahay wax sax ma maalin walba waxa la leenayaa shacab waxa la dilayaa dad shaqaysanaya oo dhalinyaro ah oo dan biday inay tahriibaan bajaajleyda dadka ah oo mootooyinka wata waxay qabanayaan hawl muhiim ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed maslaxadii u haya sababtoo 20,000 oo bajaaj ayaa shaqaysan in ka badan ninka soo bajaaj wajana marka uu yiraahdo wuxuu biilayaa qoys 10 ilaa 5 qof u dhaxeeya haatan haday dhigaan bajaajleyda ay dhigaan anu waxaan kamid ah odayaasha dadka bajaajada leh kamid ah ilma tahriibaya amba ku biiraya hay'adaha kale dawladda ka soo horjeeda ayaa shuruud nooga dhigay inay waa tahriiba amba bajaaj igad amba waxaan raacayaa aw ahay ragga kale dawladda ka soo horjeeda bajaaja u gada kamaantay wixii ka dambeeyay inaan mootooyinka ka xaraasho oo la shaqo waa ku waayeen oon iraadin walba meesha uu rabaha aado ayay joogtaa marka waxaan leeyahay bajaajleyda waa u tacsiinaa dadka mootooyinka wata oo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee mootooyinka bajaajada wiilashooda u dhiiba waa u tacsiinaya odayaasha Soomaaliyeed daan nahay wixii dawladda amba xildhibaanna kuwa lagu sheegayo ay sheegaanna waxaan leeyahay dad wax garta waxaas ma sheegin dadka wax garta aanu ka mas'uul ka ah mootooyinka iyo dadka iskala baabuurta mootooyinka bajaajada iyo shacabka ay u shaqeeyaan iyo caruurta u shaqeeyaan waa u tacsiinayna maalin mayna gaari doonaan hadafkooda hadii lahayn qodobka labaad oo raba inaan ka hadlo shalay toolo aydoo dhiig daadanayo oo lagu dilay magaalada Muqdisho dad badan gaar ahaan Sanca waxa lagu dilay daraad galab laba nimo ganacsata oo 67 jiryaala dadkii mas'uulka ku ahay ayaan ka mid nahay oo adeeryaalka u ahay aydoo dhiigoodu qoyan yahay kuwa magaca beeshaan sheegta mudulood inay yiraahdeen magaaladu nabad waaye aad uga xuma waxaan kaloo u mahad celinayaa oo u hambalyeeynaya wabar socdaar wabar ilfaaf codkiisa oo ka jeediyay meediyaasha ayaan ku taageereynaa odayaasha Muqdisho ka mid ahay aniga waxa leeyahay Axmed Maxamuud Sabriye Farey odayaasha dhaqanka ee Muqdisho gaar ahaan muduloodan ka mid ahay waxaan taageero weyn oo hiil iyo hoo aan meediya u marina wabar socdaal wabar ilfaaf warka oo meediyaha ka sheega asaa mas'uul u ah umadan mudulood asaa mas'uul u ah odayaasha Muqdisho asaa mas'uul u ah waxaanu leenahay waxyaabaha socda qoladan dawladda oo siyaasadda magaalada Muqdisho ay ku maamulaan waxa ka bedelaan dadka shacabka Muqdishona waxaan u baaqayaa xanuun badan oo 30 sanahan soo marna meel ay doontaan ma naqaan bal inta laga quusanayo xiisada ay kuna inay dajaanan u baaqaya waxaan ka aaminsanahay askari ka soo la qoray odayaal dhaqamaan askari ka soo la qoray ama qora la siinayo fooma laga buuxshaa odayaana saxiix waxaan idaacadaha ka maqlaayay debla hebel shacabka soo qabto nin keena xildhibaana amba nin mas'uulaha keena waa la yaqaan foomkiisa dib loo raaco danaan laga lahaynoo waxa ku fadhiya mas'uuliyiinta nimanka dawladda sheena ku fadhiya dadka wax dilay ninka buundooyinka lagu dilay fiijalo wahay munishibiya aadil fiijalaha mushaarkiisa bajaajka maalintii bishu waxa laga qaadaa $15 waxa keenay nin mas'uulaha qoray la iskama qoro dadka Soomaaliyeed waa og yihiin dadka la iskama qoro rigana lagama qoro safra lagama qoro waxa laga qoraa mas'uuliyiin amba degmada foom ka buuxisa amba xildhibaanada foom ka buuxiya qof aan la aqoon karin amba la keeni karin hal daqiiqo ma jirto marka mabaadii waxa jirta
haddii askarigan dembi lagu oogo oo dawladdu uga dhaqan eg tahay hogaamiye kooxadeed askariga haddii dembi lagu eeda kan kala shaqeynayo nasiib darro waaye mootooyinka markay soo degayaan canshuuraha laga qaadaa bishana $15 laga qaadaa ninka wada leysiga markuu qaadan tago 10 hay-ad meelood lacag loo qaadaa lacagta lagu qaadayo waxaa la rabay inay xornimo ku helaan oo wadooyinka ku maraan oo wadooyinka loogu dayactiro oo ammaankooda lagu sugaa la rabay askarigii mushaarkaas la siinaayay xabado indhaha ka galishay soo dilay waxay imaanayaan marka cadaalad darrada shalay 9 waxaan ka dagaalanay waxaan kamid ahay dadka ganacsatada markaas jooga canshuuraan bixi jir haddana waxaan kamid ahay dadka canshuurta bixiya hadda cadaalad darradaas waxaan aad uga codsanaa xanuun badan soo maray marna wadada dib loogu noqdo haddana waxaan codsanaa lama cadaab waxaa roon moogtahay kii oo waxaa roon kii wax yar qabow haddii waxaas yimaadeen dhibaato kala imaanayso waxaan codsanaynaa dadka canshuurta laga qaado in loogu shaqeeyo ee aan lagu dhibaataynin shacabka Soomaaliyeed iyo canshuur bixiyaasha ayaan codsanaynaa odayaasha dhaqanka hadaan waxaan ka rajaynaynaa su'aal la isweydiiyo oo qof soo jeeda la kacay hurdaysa la kacay maahane qof soo jeeda lama kacay wasaaradda hay'adaha ammaanku waxa dhacaya waa ogyihiin in wax la weydiiyo wax ku saxmeen waxay wax ku saamayaan in lagu ciqaabo oo xilka looga qaado oo nin kale oo leeslee waa suuq kara oo khibrada u loo dhiibo ay ku sugmayaan maane in asii wax la weydiiyo oo ka jawaabo ma ku saxmayaan mid la wax weyn ka filmayno hay'adii warfaafinta waa laga xaniba meesha marka waxay isu sheegeen niman guri ku shiray waxay isu sheegeen dadweynaha ma khusaynayso